السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada barkoolekan Cabdulla Mansuuri waxaan idin rajaynayaa dhamaantii beenad wacnaan iyo wanaag aad wada sugantiin maanta muuqaalkeena uu ka duwanaan doonaa muuqaaladii hore aan iskuul la wadaagi jirnay barayaheena bulshada gaar ahaan barkoolkeena YouTube muuqaalkan waan ku sheekaysan doonaa walina waxaan isla wadaagi doonaa sheeko ama qiso aad u cajiib ah oo uu leeyahay markaa nin loo yaqaan Maxamed Al-Qahtani muuqaalan meel dhaw daawaday buu ahaa isla isagu markaa tabiye uu ka ahaa dad fara badan markaa ama public speaking uu ka soo jeedinayay oo dad fara badan markaa u soo jeedinayay sheekadaasi dabcan waad ka heli doontaan markaan sheekada ka sheekeeyo balse intaynaan ka sheekeen sheekada waxaan jeclaan lahaa inaad soo qaataan koobkiina kafeega ama shaaha kolbadka aad jeceshiin aniga halkan uu diyaar igu yahay hal mar markaan ku dhufto sheekada si fiican baan ku sheekeynaya diyaar soo ma waaya bismillah waaya aanu sheekaysanna markaa Maxamed Al-Qahtani waxa uu dhalashaan ka soo jeedaa dalka Sacuudiga waxaana 2015 uu ahaa guuleystay tartanka caalamiga ah ee markaa hadal jeedinta markaa carga Mareykanka ka dhacayay waxaana uu matalayay dalkiisa Sacuudiga qofkii kaalinta koobaad galayna waa uu noqday Maxamed Al-Qahtani wuxuu leeyahay sheeko cajiib ah oo markaa halka ka bilaamatay iyo halka ku dhamaatay ay runtii farqi aad u weyn u dhaxeeyo isla markaana laga dareemi karayo ama maqsuudka sheekadu uu noqon karayo يعني حال أضيق يا صبرك إنه أساس يهي جوشة قفكو وداري كرايو يعني جوشة قفكو دونية إن صبر يهل أضيق تو يعني لا إماده وحول بو دونية مركا وداري كرايو أنا شيء كذا بلون محمد القحطاني معلمها كم يسوي سيد شراء أو دراستي مركا درسي لو تشورو أيام معلم كيسبا وياري مركا وحدوني إنه مركا هذا الشيدين وصمية ومركا ضد حسو شيديو markii allaale markii saa loo soo istaajiyay hadal buu ka soo bixi waayay taadaas uu guray maanta oo dhan macallinkii darbaaxu ku dhuftay waa uu fadhiisiyay maalintii labaad buu soo kiciyay sidii sileed maalintii saddexaad buu soo kiciyay sidii sileed markii dambe wuxuu ku yiri adu wax allaale wax aad yani soo jeedin kartaa iyo wax allaale waxa sameyn karaysaa ma jiro ee halka iga fadhi ardaydan aad bay runtii ugu qosleen halka markuu taaray yahay qofku mar walba waxaan ku yara dari doonaa in yaro xikmada dabcan isagoo laftiisa ku soo darayay waxa xikmadu oranaysaa qofku markay dhibaato ka hortimaado ama wax uu markaa gaari kari waayo arko laba khiyaar baa u yimaada khiyaar daran oo khiyaar al-as'ab loo yaqaano iyo khiyaar al-ashal marka loo yaqaano khiyaarka ashalka isaga xadiisa waxa uu ahaa inuu ardayda ka mid noqdo xagga dambe iska fadhiisto waxna aanu soo jeedin daraaska waxba aan ku darsan khiyaarka as'abkina waxa uu ahaa inuu daraaska qayb ka mid noqdo wax soo jeediyo tartamada ka qayb galo yani isku dayo inuu markaa xirfadan uu barto markaa dib u soo kobciyo wuxuu khiyaarka fudaaban qaatay daraaska xagga dambe iska fadhiistay hawsheeda iska watay cid kama lama hadli jirin xataa waxa yani ay runtii taariikhi in xataa ardayda aan dhexdeli kari waayo oo qof markaa aad ardayda uga faqooqan markaa noqdo bisabab arinka igu dhacay aawadeed in ardayda oo dhan ka goo oo cid aan la sheekaysan waayo inta kadib markii thanawiyada uu soo gaaray ama secondary waxa loo yaqaan uu soo gaaray ayaa maalmaha kamid ah isagoo baskii ku socday gurigooda markaa saaran isla markaana doonayay inuu xaafadii markaa tago iskuulkiina uu ka imaaday ayaa qof ka dambeeyay oo markaa ardaydii iskuulka wada dheeri jiray mid kamid ah ayaa markaa soo jeediyay markuu markaa soo jeediyay su'aal buu weydiiyay su'aashii weydiiyay intuu jawaabteedii ugu qoray qoraal ayuu markaa tusayo halka markaa uga jawaabay yani kaanaba inaanu hadli karin wuxuu ku yiri maxaa ku diiday inaad hadli weydo oo markaa dadka wax uga soo horjeedin kar weydo يعني كأنما يعني waxa uu sheegay inuu baqasho dareemayo ama khoof uu dareemayo wuxuu ku yiri waxa arinka ka bixin karaya ama xalka aan ku hayo waxa weeyaan xal aad ku waari doonto isla markaana aad wanaagsan aan ku haya xalkaas waxa weeyaan inaad ardayda bari hor timaado dabcan ardaydu waa dhowr boqol oo qof weeyaan ardaydu inaad inta hor timaado aad wax ka soo horjeeso saasa waayahay subaxii uu soo diyaar garoobay ardaydu bis wax ka soo horjeeday waxa uu soo jeediyay laakiin aad wax isku dhex dardaray waa taataadiisi buu bilaabay ardayda markaa qaar kamid way ku qosleen sidii markaa siga daay waxa ku dhacday markaa maalintii ku xigtay buu ku celi oo dib ugu soo celi markaa macalinkiina dib ugu yeedhay markaa macalinkii hore ma aha macalin labaad weeyaan dib uu markaa wax uga soo jeediyay maalintii saddexaad buu soo jeediyay waxa uu dareemay markaa maalintii hore wax hadaladii uu gafayay iyo waxyaabihii ku soo istaagay inaan maalintii dambe aanay ku soo istaageen laakiin maxaa ku dhacay halkii markuu marayo dhibaato markaa la tumay laftarkeedii oo yani wixii uu doonayay hal mar uma suurta galin kadibna intuu istaagay ka fikir wuxuu maxay iigu suurta gali weyday ila waadi uu hadad halka istaagto oo ardayda hor timaado waxa soo ardaya hal mar way ka baasaa baqashadu si fiican wax u soo jeedinaysaa maxay iigu suurta gali weyday halka waxa ku jirta xikmad aad u cajiib oo oranaysa an-najaahu la ya'ti المرة الأولى يعني جوشو كما تماضو مركا كوباد يعني اسكو دايدا كوباد جوشو مركا قار كما تماضو marka qaar waa kugu iman karaysa oo si fiican wad guulaysan karaysa laakiin marka qaar waxa dhici karaysa in aan guushu kuba imanba oo marka inaad ku celisid oo mar dambe isku daydo oo yani marar badan aad markaa samayso ay kaaga baahanayso halkii marka sheekadu marayso waa isla daayay isla joojiyay
markuu secondary dhameeyay waxa markaa scholarship iyo jaamacad markaa u doontay ariga Mareykanka halkaas markaa wax ka soo dhigtay markuu soo dhigtay wadanka Mareykanka inta joogay dabcan inta ayana sheeka dhaafine waxa uu sameeyay aad wax uga qayb gali jiray meelaha yani lagu kaftame ee markaa kamariga ah ama yani dadka laga qosliyo ka qayb gali jiray marka yani wuxuu soo bartay xirfado badan iyo skills badan inta lagu hadlayay iyo sidaabaha dadka loogu qosliyay action iyo waxyaabaha la sameeyo oo dabcan laba qaab wax dadka loogu qosliyaa mar waa muuqaalka iyo qofku actionista iyo body language uu bixinayo marna waxa qofka laga qosliyaa weeraha qofku markaa uu ku hadlayo labadaba markaa inkastoo inay saraacaan ay mudan tahay oo markaa qosolku si wanaagsanaanayo marka wuxuu aad ugu wacnaaday ama xirfadii marka uu yeesho waxay noqotay inuu dadka qoslin karayo marka waxa jirta wax loo yaqaan nuqaad alquwa qof kasta oo dunida ku nool wuxuu leeyahay nuqaad alquwa iyo nuqaad dacf yani meel aad ku xoogan tahay iyo meel aad ku daciifsan tahay marka labada inaad garato waxay ku saacidaysaa inaad nolosha guul fiican ka gaari karto laana waxaad garanaysaa nuqaad alquwa hadi yani waxaad ku dhisaysaa marka waxa doonaysid nuqaad dacf laana waad ka soo dhisaysaa marka waad iska wanaajinaysaa ama hoos baad marka aad dhigaysaa waaye halka markuu marayo ayaa markii uu soo noqday Saudi ku soo noqday shirkadda Aramco buu shaqo ka helay marka shidaalka ama naftiga markuu shaqo ka helo muddo marka ka shaqeynay oo wax alaale wuxuu ka qayb galay iyo wax meel ka soo jeeday aan jirin ayaa maalmaha kamida yani booskiisba u yiri wuxuu waxaan doonayaa dadkan wax kala dhiciso oo wax soo jeediso oo marka aduu malaa mashruuc wax laga wada halday wuxuu ku ma soo jeedin karayo dabcan ka qayb gal buu ku soo jeediyay isagoo sidii wali ah oo muddo badan ka soo wareegto jaamacad soo dhameeyo shaqadii muddo badan ku jiray ayaa hadana waxa ku sii jirtay wali taadii ama inuu yani hadalkii ku dhagdhagayo ama baqasha ku yara jirtay ama wax badan inuu soo fiican soo jeedin karin wuxuu ku celceli marar kala soo jeedi yani dabcan muddooyin fara badan isku xirsiyay laakiin يعني waxa uu ku fiicnaa waxa weeyaan dadku ka qoslinay aad baa loogu qoslayay weero kelmaduhu oranayo yani weeruhu oranayo waxyaabuhu markaas ku dhex daray aad baa loogu qoslayay طبعا يعني marka loogu qoslay ma aha in yani ka xaraabaysi yani inuu wax qaldayo laakiin inuu kamari sameyn karayo ayaa marka aad yani loo la haystay halka markay marayso maalin kamida booskiisa baa yimid wuxuu ku yiri nin hadad ka qayb gasho ka waran aad waxaad ugu fiican tahay soo jeedinta nuqaad dacf nuqaad quwada waxa weeyaan inaad wax soo jeediso dadkana ka qosliso ka war hadad ka qayb gasho يعني ترتنك عالمي ده السعودي خطابه اما يعني هذا سو jeedinta ما ka qayb gali karay buu ha ka qayb gal dabcan isku day buu wuxuu yiri waxaan iri labad waa inaad markaa ka shaayo markaa isku dayda waxaan ka qayb markaa Sacuudiga ilaa xagga sare inta laga soo gaaray markaa wax laga soo bilaabo xaafadaha adana magaalooyinka hadana markaa yani si guud markaa qarankooda baa loo tartama marka wuxuu yiri koobaad markaa soo duuleystay kii labaad markaa soo duuleystay kii guud ee markaa Sacuudiga oo dhan kaalinta labaad baan u galay kaalinta labaad markaa saa u galay ayaa waan sarfaanay buu koobkii liisiba inta saa qabtay koob yar koob waha ayaa makana yani xaq u yeeshay yani kan inaan xaq u yeeshamay ahayn marka ninkii toobarhayd baa yimid wuxuu yiri intuu markaa kelmad aad u cajiib ah buu yiri wuxuu yiri ma waxaad doonaysaa oo u tartamaysaa inaad koob aad hesho haddaad doonaysa koob weyn anaga suuqa kaaga soo iibinaya oo ku siinaya laakiin haddii intaa wax dhaafsan aad u tartamaysay tartankaaga waa sii wadi waana guulaysan doontaa laakiin haddaad u tartamaysay koob kaliya kaa anaa kuu soo iibinaya oo ku siinaya hal maanta isaga hadh kelmadii raad bay ku reebtay dabcan waxaana uu markaa ka fikiray waxaan uu socdo maxay tahay yani dabcan marka qaar waxyaabaha nolosha ka sameynaysa iyo waxyaabaha u socoto inay qiimo kula yeeshaan oo si fiican aad u garanayso oo qastiga waxaan aad u sameynaysa inaad garanayso ayaa runtii aad u muhiim ah sidaa daraadeed niyadu waxay kaalin weyn kaga jirtaa diinteena xaniifka ah inama alacmaalu binniyat yani acmaasha oo dhan waxyaabaha lagu kala saaro waxa kamid ah waa niyada yani niyadaadu salaam wada weysanaysaa ama salaamad meeranaysa inaad meeranayso oo caadi u meeranayso iska qabowsanayso inaad janaabo ka meeranayso inaad waxyaabo kale ka meeranayso yani waxyaabaha lagu kala saaray waxa kamid ah yani niyada qofku si u niyoonayo ama niyadiisa ay acmaasha lagu kala saaraya salaada sunnada iyo salaada farka maxaa lagu kala saaray waa niyada iyo qofku markaa qastiga uu ka leeyahay marka waxyaabaha niyadu waa shay aad u muhiim ah yani waxaad qabanayso yani habkad u niyoonayso iyo sad ula fikirayso waa wax runtii aad u qiimo badan sadreed waxa uu markaa tababaruhu aad uga fikiriyay uu lahaa niyada aad yani ku fikiraysa ama aad shaqadan ama hawshan aad u qabanaysa ee tartanka uga qayb galaysa ha ahaato mid aad u weyn ha ahaato oo yani kaliya aan noqon inaad shahaado ama jaa'izad yar toban qaato waxa dhacday sidii lagu jiray jaa'izadii iyo markaa koobkii uu qaatay kaalintii labaadna sida uu ku galay waxa markaa dhacaysay qofka ugu sareeyo Sacuudiga inuu uga qayb galayo tartanka caalamiga ah ee markaa yani dunida oo dhan markaa laga soo qayb galayo ee markaa hadal jeedinta marka dunida oo dhan marka cidii ka soo qayb gali kartaa ama dawlad walba qof soo dirsanayso Sacuudiga marka qofkii ka sareeyay baa marka yani uga qayb galay inankii ka sareeyay ayaa waxa ku dhacay dhibaato aad u family iyo hawla waxa ku imaaday isagoo marka maalmaha kamid la soo haday wuxuu ku yiri hawsha noocaas ay u dhacday laakiin waxaan u baahanahay inaad adigu imatasho adigu anigana imatasho dalka Sacuudigana aad matasho aad buu yaabay hawsha qaadi kari maayo iyo yani taajab aad u weyn baa marka ku imaaday
وطبعا دhinacna fursad bay ka tahay dhinacna uu la yaaba yani sidoo ayaan uga qayb gali karayaa tartan intaasoo kun oo qof ay ku daawanayaan oo markaa wadan dhan aad matalayso adigoo markaa mustawahayga xataa weli ku qanacsan dadka qaar baa ku qanacsan mustawahayga yani se weli kuma qanacsan waxaan yani si fajaa oo markaa yani kadis ah ayuu ku gaadhayaa wuxuu ku may aniga saas weeyaan tartanka kama qayb gali karayo ma tagi karayo adigu waa inaad markaa ka qayb gashaa saas ahaa tobariisna waa ku dhiirigeliyay waxa markaa uu tagay magaalada Las Vegas cariga Mareykanka markaa xagaas markaa kaga qayb galay tartankii wuxuu markaa tartanku qaybo kala duwan buu u dhacayay waa la iskala qaybinay teams baa isku kala qaybinayay markaa marka hore waa la soo tartamayay laba qof la isugu beeriyay ilaa 10 u dambeeyay soo baxaan markaa saddex qaybood baa loo kala qaybiyay aduu teamkii u dambeeyay 10 u dambeeyay ayuu markaa ka mid noqday 10kii u dambeeyay markuu ka mid noqday wuxuu xagga u dambaysa ayaan fariistay qofka u dambeeyay doonay markaa inaan noqdo wuxuu aad ba u yaabanay yani niyadeedina kuma jirto inaan markaa noqon doono guuleysta qofkii koobaad baa kacay kaanama yani inuu qofkiyaasi uu ahaa kaalinta koobaad inuu galay markuu kii koobaad soo jeediyay waxaan idhi okay markaas awal ama yani qofkii koobaad saasuu ku guuleystay ama guuleystihii koobaad winnerkii koobaad saasuu ku helay kii labaad baa kacay kii hore ka dareeyba haya labaa tagay kii saddexaad yani midba midda ka dambeeya uu kasii dareeyay kii hore wuxuu idhi dowrkeydii baa imaaday si fiican baan soo jeediyay laakiin intaan aanu soo jeedin baa wuxuu weydiiyay kii markaa muraaqibka abu weydiiyay wuxuu yiri imsa qof markaa laga hor jeedinaya wuxuu ku yiri 3000 ilaa 4000 qof ku dhawaad ayaa markaa ka soo qayb galay oo markaa wax laga hor jeedinaya markaa niyadiisa mar bay ku jirtay inuu intaas oo dad wax ka hor jeediyo oo waxa dhaci doonta wadii soo sheeka dhaafay su'aal aad u muhiim ah oo markuu soo bixi doono uu weydiin doono ku oran doono markii yani koobka ku qabsaday iyo fikirkiisa ay wax ku oran doonaa waxa suurtagal ah tartanka ay ka qayb gasho inaad ku guuleysato ee maanta tartanka markaad ku guuleysato kelmadii aad oran lahayd halkan ku sii qor yani markaas ku sii qoray wixii markaa muhiimada u ahayd ee markaa uu ka fikirayay maalintaas ayuu halkii ku sii diiwaan galiyay tartankii uu ka qayb galay waa la yeeriyay guuleystihii 10aad 9aad saas loo yeeriyay ilaa markii u dambeysay la yiri الفائز بمركز الاول للعالم كله في مسابقة الخطابة هو محمد القحطاني يعني قفك guuleystaha kaalinta koobaad galay ee markaa hadal jeedinta caalamka oo dhan waa Maxamed Al-Qahtani aad baan u yaabay waa soo kacay buu yiri koobkii baa la gudoosiyay kamaradihi baa yani si sawiraan fara badan iga qaaday waa aad baan u yaabay buu yiri maxaad soo jeedin lahayd baa la yiri maxaad oran lahayd markaa qisadii ayaan ka sheekayay buu yiri qisadii bilowdeeda yani طفل ama ilma yar iskuulkiisa ku jira oo maalintii koobaad uu soo istaagay ama dad isla ka soo horjeedi يعني بلو إلا دمات كل ما يستي كل ما يستي أو يعني وحبس سوى شيء كرواي ما أنتنا يعني نقطة جوريستها عالم كأودني هذا الشيء أنت هل كمان مركز سوى شيء بيقولي وحنا نقطة مركز إن يوسكي يعني ميل والبا لينا هذا الهي أنا أو ميل والبا لينا صوب نجو كده بالسعودية عندي بوصون نقطة هذا أنت أنا كوصون نقطة واحد عادي بيقولي قف كم إذا ضدك مركز يستياش بأي مادي أو مركز فرصة وهلا مركز يسوق قالوا وحلولي ما أنت واحد بده شيء يعني تغيير حياتي يعني تغيير حياة كامل بس ميسا إنه رشيد أورنا بدوح بدنك بدش يعني مستسان أو أركين رشيد يصير كدوان أيان هذا واركيا واحد بدن رشيد كبدشي وحنا نرجينيا إن المركز دول فر بدن أنقاري توم هل كاسي ويتم قضي يعني هذا الكاسنا واحد بدن بمركز يعني يقول سوى شيء وحلو واحد نفكر إلى النقطة صاحب رسالة waxaan ka fikiray buu yiri markaan Sacuudiga ku soo noqday inaan jiilal fara badan soo saaro oo ku tababaro inay noqdaan hadal soo jeediyaal wanaagsan inaan ku tababaro inay noloshooda yani guulo fara badan ka gaari karayaan inaan ku tababaro inaan ka caawiyo mawaahibta iyo hibooyinka ay leeyihiin Ilaahay Subhanahu wa Ta'ala ku galladaystay inaan ka soo saaro oo ogaado oo si ku ogaan lahayn u fududiyo kadibna aan ka caawiyo sidii ay ugu guuleysan lahaayeen halkaasna markaa risaaladeedii ka bilaabay waxa uu leeyahay waxa muhiim ah qofku marka dunida uu ku nool yahay in saaxiib risaala uu noqdo مشروع عن رش أكل هذا محيطه محدون سيد برشاد رسول كردسو محدون سيد ضد قبتيد يعني قفكوا حبا يعني سؤال وين باجر توقف محو حبرتها طبعا أما محو إنه ليه طبعا محو إنه ليه سؤال وين أو تسوي انتاس أو أباهن يعني جواب وين أباهن رمتي أنه فلقين بدن أباهن لكن سؤال شكله هو استحوي محو قفكوا حبرتها تاسو مركز يعني دقيقة قفكوا مكلي نفتي صوت لي وحبرتها مسدل كيس وحبرتها مسدل كيس وحبرتها مسا يعني جوانب كلو كلا دوان وفر بدن وحول دكتاتها تاسا مركز أي كذا لانسا مشاريعنا نولدا سمينا سنة ميه مشاريع برشة هذا قريب وين كقاعدنا يو مركز وحوين أصوت ورني أطرية قصة عجيبة بيحيد وأنا قصة رنتي نفرنيمو يعني هالعضيب صبر بدن أي كوجرتو طبعا أدنى أصوات وبس إذا ولا شيء تاني دبعتوي يعني كنا عيا طبعا في السوشيال كذا أنت كومريد لكن يعني مراحلهم مرة أدو فربنا طبعا
waxyaabo badan markaa uu ka tallaabsaday yani sidoo markii koobaad oo ahaa iyo sidoo ku guuleystayna aan isku mid ahayn yani waxay ku tusinaysaa sad maanta noloshaada u aragto iyo sad naftaada u aragto inaanay ahayn nihaayadaada dhamaystirkaaga inaanay ahayn laakiin yani shakhsiyad ka duwan aad noqon karayso qofku maanta ka duwan aad noqon karayso kaliya tagyiir iyo isbedel baa markaa u baahantay إلهي سبحانه وتعالى القرآن كسنة حكوري إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هل كقاعدة وحلقة صار تغيير أورانيسا تغيير القوم ما بأنفسهم مقدم بتغيير الله يعني إنه إلهي سبحانه وتعالى قوم كوحدة بدلوا أما حتى نفترض إن إلهي سبحانه وتعالى وحدة بدلوا واحد كهر رئيس إن هذا السوء بدشوا يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا يعني شرط يا طمار وحده إلا أمضى سيس بدشوا إلهي سبحانه وتعالى حكمه بدلوا آية النواتي لها ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا يعني هذه إيمانية لك عبس الأيماضان لفتحنا عليهم بركات من السماء يعني وحال لغو حري مركا محي إيمانية تقوى لغو حري اسبدل لغو حري سي مركا يعني انت تنبى الله سي مركا مهم وحويا هدين دون إنه مركا اسبدل نولاد لا إيمانه أما يعني سيدا أينو دون إنه سيد دوان أينو مركا يعني نولش إنه أينو قطو يوحيابها الرجين أنا طبعا نقول ليسنو لابد تغيير ما jirto wax loo yaqaano qofku inuu yani hal meel ku eekaado yani inaad tiraado okay maanta waan fashilmay ama noloshaydu sidaan oo kaliya noqonaysaa wax isbedel dhici maayaan yani saas ma jirto aduu haddaad ku raali noqoto dabcan raali baad ku ahaatay laakiin yani wax sidaa la iraada ma jiraan laabud tagyiir baa isbedel baa imanay yani hadalkan ku dheereen qisadaasi yani waxayna tusinaysaa waxa aan soo sheegno oo dhan waxaan darajinaa insha Allah inaad wax ka faa'iideysteen dhamaanteena aynu tala fiican iyo marka xor fiican aynu ka qaadanay inta ku kulmana muuqaalkan lamida waxaan kaga tagayaa nabadgelyo